السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواد بدبادة أكشن oo YouTube channel aan ku baahino fursadaha hadba bulshada dhexdeeda ka jira haday tahay shaqo, haday tahay arrimo bulsho iyo haday tahay iskaashi. maanta halkan waxaan doonayaa insha Allah inaan kula wadaago fursad aad iyo aad u muhiim ah oo bariyahan baan ku mashquulsanayn oo aan ugu talagalay bulshada Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku dhaqan caasimadda iyo meelaha ka baxsanba in aan u soo kordhinay barnaamijyo tababar ah oo ka kooban short training programs oo aan ugu talagalay ardayda jaamacadaha kuwa sekondariyada iyo dadka shaqo doonka ahba inaanu ka dhisno dhinaca arrimaha maamulka. sidaas darteed waxaan doonayaa halkan inaan uga faa'iideysto fursadaas iyada ah in halka maanta ka cilaamino oo aan bulshada u cilaamino. xarunta badbaada action waxay bixinaysaa training course uu ka mid yahay NGO management skills ama how to set up and develop local NGOs sida NGO-yada loo aasaaso isla markaana loo dhaqaajiyo. waxyaabaha lagu baran doono waxaa ka mid ah qaabka bylaws-ka ururada sida loo dejiyo haday tahay shuruucda ururada iyo NGO-yadaba oo ah dastuurkii iyo xeerarsadadiisa loo dejiyo, sida loo samaysto hadaf iyo hanaan maamul oo qurux badan oo NGO lagu dhaqaajiyo managerial skills-ka. waxaa kaloo iyadana halkan aan doonayaa insha Allah inaan ka bayaabino inaan bixinayno community mobilization training qaadanayo waqti kooban oo ah 10 cisho. waxaa kaloo runtii halkan iyadana doonayaa insha Allah inaan uga faa'iideysano fursadda inaan sidoo kale aanu cilaamino inaanu qaadanayno barnaamijyo ay ka mid yihiin how to write CVs and interview skills oo iyaguna 7 days ama 7 cisho qaadanaya. dhammaanba tababarahaasi waxay ku bixi doonaan luqadda af Ingiriisiga haddii Ilaahay qadaro. ciddii markaa xiiseynaysa ama interested ku ah waxaan rajaynayaa insha Allah inay WhatsApp-ka nagala soo xiriiraan haddii Rabbi qadaro, anagoo markaa uga faa'iideysano fursadaasi insha Allah inaan diiwaan gelino dadkii ku habboonaa ee barnaamijkan runtii sida ugu qurux badan u baran karayay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.